Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka qubanaha TV kuwada ugu doorka roona waxaa kamid ah. Dhalinyarada Cabud Waaq oo ra'iisul wasaaraha dalka kulan la yeeshay su'aalo ku weydiinayeen. Wararkii ugu dambeeyay doorashada Jubbaland ayaa idin soo gudbin doona waxaa sidoo kale daawad doontaan. Dowladda Kenya oo cawaaqib xumo ay ka soo wajahayso muranka dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya. iyadoo dowladda Kenya ay dalbatay in laga laabto dacwadda hortaala maxkamadda caalamiga ICJ. wararka dibaddana waxaa ka mid ah Kim Jong Un iyo Donald Trump oo ku shiraya xadka labada Kuuriya oo ah meel hubka ka caagan. waa 29 bisha Juun sanadka 2019 markale ku soo dhawaada warkii oo fidsan. dhalinyarada Cabud Waaq ayaa ra'iisul wasaaraha dalka kulan ay kula yeesheen magaalada Cabud Waaq su'aalo kala duwan ku weydiiyay. ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre oo ugu heliyeen xildhibaano deegaan doorashadooda ay tahay Cabud Waaq iyo wasiiro ayaa gudaha Cabud Waaq ee gobolka Galguduud kulan kula qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaaladaasi. dhalinyarada kulanka su'aalaha ku weydiisay ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale u jeediyay talooyin iyo tusaalooyin qayb ka ah horumarinta iyo hagaajinta mustaqbalka dalkeena. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhalinyarada uga jawaabay su'aalihii ay weydiiyeen oo ay isla markaana ku ammaanay doorkooda dib u heshiisiinta iyo horumarinta arrimaha deegaanka. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhalinyarada ugu bishaariyay inay dowladoodu ay ku shaqeynayso aragtida muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhalinyaradu qaybta ugu weyn ay ka yihiin, waxaana uu ku dhiirigeliyay inay sii wadaan dadaalada ay ugu jiraan sidii dalkooda u noqon lahaa mid la jaanqaada wadamada casriga ee caalamka. dowladda dalka Kenya ayaa dalbatay in laga laabto dacwadda ICJ. qareenada dalka Kenya ayaa war ka soo saaray muranka dhinaca badda ee Soomaaliya ee Kenya ayaa dalbatay in dib loo dhigo dacwadda hortaala ICJ. ururka Kyoto iyo Kebe oo ay ku midaysan yihiin qareenada dalka Kenya ayaa tilmaamay in kiiska uu xadgudub ku yahay dastuurka dalkooda sida ay hadalka u dhigeen. waxaa sidoo kale intaasi ku daray in dowladda looga baahan yahay inay laasho dacwaddaasi. qareenada ayaa sidoo kale waxay baaqooda u gudbiyeen xeeryaalaha guud ee dalka Kenya, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo maxkamadda sare ee dalka Kenya. hadalkan ayaa imaanaya xilli shalay wasiir Muniko Juma waraysi ay BBC siinaysa ay ku muujisay astaamo u muuqda in Kenya ay guul darro ay ka soo socotay kiiska dhinaca badda ee Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa ka jawaabtay dhowr su'aalood oo la xiriira kiiska dhinaca badda ee horyaala maxkamadda caalamiga ee ICJ. waraysiga muuqaal ahaan waxaa ka muuqda welwel iyo foojignaan badan oo dhinaca jawaabaha ah. inta badan jawaabaha ay bixinaysay waxa ay xambaarsanaayeen dareen iyo isku dhaxyaac kuwaasi oo muujinaya heerka ay ka gaarsiisan tahay welwelka Kenya ee sheegashada dhinaca badda Soomaaliya. bisha Sebtembar ee soo socota ayaa la filayaa in dib loo furo dhageysiga dacwadda dhinaca badda Soomaaliya sida lagu shaaciyay war-saxaafadeed ka soo baxay maxkamaddaasi. diyaargarowga ugu dambeeyay ee dhinaca doorashada Jubbaland ayaa waxa uu ka socdaa magaalada Kismaayo. magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa ka socda diyaargarowga ugu dambeeyay ee doorashada Jubbaland gaar ahaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi. wararka ayaa sheegay ergada soo xuleed xildhibaanada saacadii la soo dhaafay ay gaareen magaalo xeebaadka Kismaayo gobolka Jubbada Hoose. Jubbaland ayaana xarun gaar ah ergada u sameysay kuwaas oo amnigooda si gaar ah loogu dhowrayo. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un ayaa ku kulmaya xadka labada Kuuriya oo ah meel hubka ka caagan. hogaamiyaasha dalalka Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa u madlan shir ay ku yeelanayaan goob hubka ka caagan oo u dhaxaysa wadamada Waqooyiga Kuuriya iyo Koonfurta Kuuriya. Donald J. Trump madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay inuu la kulmi doono Kim Jong Un hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya isagoo xusay inay ku kulmayaan xadka labada Kuuriya. Mr. Trump oo ka qayb galay shir madaxeedka dalalka ku horumaray warshadaha ee G20 ee lagu qabtay dalka Japan ayaa waxaa la filayay inuu boqolo dalka Waqooyiga Kuuriya. wafdiga madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ugu horeyn tagaya magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed halkaas oo uga bilaabanayso muuqashada labada maalin ah. ujeedada socdaalka Donald Trump ayaa dhameystiray heshiiska baabi'inta hubka nuclear-ka ee xukuumadda Pyongyang, waxaana uu martiqaad u sameeyay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa yimid kadib markii uu la shiray madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping oo ay ka wada hadleen dagaalka dhinaca ganacsiga ee labada dal muddooyinkii ugu dambeeyay dhex marayay. madaxweyne Trump iyo Kim Jong Un ayaa horey u shiray una heshiiyay balse ma jiraan wax dhaqangal ah oo heshiiska labada dhinac.
waxaana jiray dagaal dhinaca siyaasadda ah oo ay hawada isu marineen labada dal iyadoona Pyongyang ay la xiriirtay markii dambe Ruushka maadaama uu Ruushka iyo Mareykanku ay ka dhaxayaan loolan dhinaca siyaasadda. warkii subax cod ka daawanayseen qubanaha TV daawadayaal weynageynta haddii aad channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe-ta like-ta iyo share-ta inaga iloobin waad ku mahadsantihiin daawashada wararka aynu halkaa idinkaga soo gudbino.